السلام الله عليكم asxaabta sharafta iyo qiimaha u saaxiibka wararkii ciyaaraha caawa waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa guul weyn gaadhay halka kooxda kubadda cagta Juve ayaa iyadana lagu dhigay caawa hadaba kooxda Chelsea ayaa hal lug la sii gashay wareega sideedamaadka UEFA Champions League kadib markay kooxda heer Faransiis ee Lille ay 2-0 ku garaaceen ciyaar ka dhacday garoonkeeda Stamford Bridge kaasoo ahaa kulan aad u xiiso badnaa oo kooxda Thomas Tuchel ayaana guushan u qalantay maadaama ay maxaa la dhahaa gurigoodana ay joogeen sidoo kale Thomas Tuchel ayaa wuxuu sameeyay bedel kan uu bench dhigay odaygii Lukaku ahaa ee aynu ogaan ciyaartii hore inuu 7 jeer oo kaliya kubadda taabtay hadaba caawa Thomas Tuchel bench ayuu ku qabtay wuxuuna booskiisii ka doorbiday wiilkan caatada ah ee heer Jarmal Kai Havertz hadda ninkaas waa nin caadi ma aha wiilka yar caatada habeenka Chelsea ay u baahan tahay ay ku baxsato wiilka yari khatar weeye Kai Havertz marka caawa gool ayuu u dhaliyay madax ahaa kaasoo kubad cross ah uu ka helay Hakim Ziyech goolkaasna wuxuu ku qabtay madax aad u xoog badnaa kaasoo uu hogaanka u dhiibay kooxdiisa Chelsea ciyaartu noqotay 1-0 oo kooxda kubadda cagta Chelsea ay hogaanka ku hayso wadamada Chelsea sanadka waxaan u maleynayaa marka labaad ay daafacan doonaan UEFA Champions League hadayna kooxaha waaweyn ee bilaayada ay helin laakiin kooxda Chelsea koox madax adag weeyo way maxaa la dhahaa waa daafacan karayaan UEFA Champions League marka sidoo kale Pulisic ayaa isaguna wuxuu u dhaliyay kooxda kubadda cagta Chelsea heer Mareykan isaguna maxaa la dhahaa indhaweed inkastuuna gool dhalin haddana waana goolkiisii ugu horeeyay UEFA Champions League tan iyo markii uu shabaqa ka soo taabtay kooxda Real Madrid xilli ciyaareedkii hore kooxood ayaa waxay soo bandhigay kubad aad u fiican inkastoo aan khatar badan aysan jirin oo maxaa la dhahaa kooxda kubadda cagta Chelsea inta badan ayna cadaadis aad u fara badan ayna saareen kooxda heer Faransiis haddana kooxda kubadda cagta Chelsea waxay gaadheen guul weyn kaasoo ay chance u haystaan baxaan sideedamaadka UEFA Champions League maadaama ay faa'iido weyn ay haystaan oo ay 2-0 ku garaaceen kooxda heer Faransiis ee Lille kooxda kubadda cagta Chelsea ay guul weyn soo gaadhay haddana tababaraha Thomas Tuchel iyo kooxdiisa Chelsea waxa soo gaadhay dhaawacyo kaasoo ay ku baxeen Kovacic iyo Hakim Ziyech oo ay ka dhaawacmeen waxaana shaki ku jira taamahashahooda finaalka ay la ciyaarayaan kooxda kubadda cagta ee Liverpool barjab weyn ku tahay kooxda Chelsea hadday waayaan labadan laacib waayo waa laba laacib oo aad ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta Chelsea dhanka kale kooxda Juve iyo Real ayaa waxay ku soo dhamaadeen barajo 1-1 ah laacibka ku cusub Juventus ee Vlahovic uu caawa taariikh cusub sameeyay Champions League kaasoo uu gool ku dhaliyay 32 ilbiriqsi oo kaliya ay ku qaadatay inuu kulankiisii ugu horeeyay UEFA Champions League uu gool ku dhaliyo arrinkana caadi maaha ninkaas Arsenal miyaa laga qaaday yahanka heer Serbia ninkaas inaba caadi maaha ninkaas waa berde waxaan maleynayaa Juve meel buu gaarsiin doonaa kooxda kubadda cagta Juve warduqdii baryahan waxba ku dhacayo baryahan bareecay saa ugu dhamaansanayso markasta waaba lagu qabanaya waa lagu dhigayaa marka nimanka Juve waxaan maleynayaa sanadka inay 16 ayna soo dhaafayn marka waa lagu dhigan yahay kooxda Real ayaa waxay soo bandhigtay kubad aad u heer sareyso marka iyaduna 1-1 ay ciyaartaas ku soo dhamaatay oo bareeca ayaa lagu qabay labada kooxoodba soo bandhigeen oo kooxda Real ay aad u fiicnayd haddana kama ay faa'iideysan labada kooxood in midkood ay badiyaan caawa marka duqdi waa loo yaabaa baan maleynayaa sanadka maanta ciyaarahaasna kulay labadooda marka dambe bal meel isla aadaan kooxda Juve kulay waxba haysto bariyahan xaaladeedu ma fiicna xiriirka kubadda cagta Ingiriiska FA-ga ayaa ganaax ku soo rogay kooxda Manchester United kadib markii lagu eegeeyay inay waxaan habboonayn ka sameeyeen ciyaartii ay 2-0 ku soo garaaceen kooxda Brighton todobaadkii hore kooxda Manchester United ayaa 2-0 ku soo garaacday hadaba kooxdaas Brighton waxayse maxaa la dhahaa ay qaylo iyo sawaxan ay ka sameeyeen ciyaartii kadib markii ay laacibka daafaca uga ciyaara Brighton ay maxaa la dhahaa oo khalad uu ku galay kadib faarta laga soo daawaday oo red card lagu siiyay laakiin odayaashu waxay sameeyeen buq iyo qaylo oo ciyaarta ay ka dhex sameeyeen marka ayaan ku soo gabagabayn doonaa wararka ciyaaraha sheerta iyo like-ta iyo maxaa la dhahaa iyo comment-gaba ayaan la iskala baqayn saaxiibayaal dhiirigelin bay anna ii tahay markastaba waad ku mahadsantiin sida ay la socotaan sharafta iyo qiimaha badan
saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan waad mahadsantihiin.